waxaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacaya dagaal u dhexeeya maleeshiyaad hubaysan oo deegaanka ah oo is-abaabulay iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhowr jiha ka weeraray goobo ay ciidamada maleeshiyaadka ah ay deganaayeen 2 deegaan oo muhiim u ah ayay ka qabsadeen markii ay qabsadeen kadibna waxay xireen dad badan oo ku heeb ah maleeshiyaadkii la weeraray qaar ay qaraabo ahaayeen xubno qaar waa la dilay qaarkoodna waa la barakiciyey sida ay sheegayaan saraakiishii hogaaminaysa maleeshiyaadkii al-shabaab la dagaalamay yuusuf macalin isxaaq wuxuu taliye u yahay ciidanka maleeshiyaadka ah ee macawisleyda la yidhaahdo ee al-shabaab dagaalka kula jira ee ka dagaalamaya degmada Walaweyn waxa uu yidhi dhul badan ayay iga qabsadeen welina way la dagaalamayaan caawimaad aan dowladda weydiistayna kama helin abo xaalada aqbar weyn waa cakarantahay aqbar weyn waxaa kasii fool xumbo yani kawherg ilaa iyo tuulooyin kale baadiyahan oo dad deegaan xoolo dhaqato ay degan yihiin waa la soo gubay dadkii shacabka ahay waa la barakiciyo hayaa aniga ma garantay ciidankii wuxuu rugtiisa u badnaay tuulo liiraha kawherg iyo aqbar weyn waa gartay labadaba gacan ku hayntooda waa laga wareegay 2 maalmood ayaa ku dagaalamay waa gartay ilaa iyo saacada hadda aan taaganahay waa nimankii isku waarsanaa waa gartay wax garab ahna kama hayo dhanka dowladda weli waa ma aqaanay wax baashika ah ilaa hadda gurma dowladda kama hayo xagee way meelaha lagaala wareegay yaa kala wareegan nimanka oo al-shabaab gaayna imise tuulo way meelaha kala wareegeen kawherg meeliira waa gartay yaqbar weyn al-shabaab miyaa qabsaday waa gartay waa niman yani cadaadis xogla soo saariyo cid oo maaragta aan u garabsan aan wey waa gartay xaaladaas culeysyadaas ay qabtay dowladda ilaa hadda wax garab kama heeyo dadkii maatada ahayd way kumaadooyaan oo maxaasley baa tihiin maxaasley la shaqaysaan ilaa iyo dhowr 7 camal ay ku xiran tahay miyay xiriims waa la dilaya waa xiriin hadda heertooda lama hayo waa gartay wax dad way dileen ama dunya ay baabi'iyeen ma jirtaa goobiya al-shabaab ay ka qabsadeen dad way soo dileen rag oo maaragta iska mangarantay mootole iska ahaayo iska shaqaysanaya xamaalad ahay 2 nin madaxay ka soo gooyeen way keeneen hawar wayeel oo idan jin guriga ku gubeen culeysyo badan annahayo insha Allah annagana weli waa isor fadhinaa dowladda waxaan ka codsanaynaa horta inay dhankaas ay naga soo kaaweyso yani nagu fiirsanaysana taasi waxaan ka qabnaa cawasho weyn waa gartay inay dowladda naga soo gaarto gurmad aniga maaragta ciidankayga intii 3 maalmood ayaa dagaalamay mishaarna ma qaataano yani garaam dowladda mustafaca tooyinkii iska la'aanayo ninkii dhaawaca meeshaad geysan laheedii dowladda inay ka caawiso risaas ka caawiso loo baahnaayo weli dowladdii waxba kama hayo waana isdaba taaganahay nimankiio saanhe mid oo maaragta islaamnimaka baxa mugta waa garta niman shacabka dilaayo waayelihii gubaayo oo yani tuulooyinka iska gubaayo oo meeshaan waa niman adiga oo nimankan qawaariid waa niman xaaladooda aan caadi ahayn dowladdu ma la hadasha marna cid dowladda ka tirsan oo aad caawimaad weydiisatay ma jirta waa sababta waa dowladda maxataliya guutada waa soo wacay waan qiimaada u yiri waan sugu hayaa insha Allah waqtigii ay noqotana waa sugayaa meelan uu noqdo ma aqaan dadkii iyo diidiidi dhexdooda waa ku dhimanayaa waana iga go'an tahay haday dowladda soo gaarto waa saan sabay haday soo gaar waasana marka istaaga insha Allah nolosha dadka shacabka ah ee al-shabaab hadda ku hoos nool ee deganaa goobii lagaala wareegay maxaa dadka ugu macnayn lahayd shacabka asigaaba barakac isku dhacayo yani ma hadli kartiin la dhowhaya yani ma ganacsi kartiin la dhowhaya bir weyna ma tegi kartiin la dhowhaya
shacab hadda oo lala hadlo meel fiican oo salaysan ma ballaha shacabka asigiyaaba hudka kala galay Beledweyne iyo Kabaharag goobihii ugu dhawaay ma fahan marka ma waxaa leedahay dawladda Soomaaliyeed waxaa idinkaga baahanahay garab al-shabaab dhul iga qabsaday dad iga gubay iga dilay waana igu adagtay inaan ka difaacdo way adagtay dawladda garab u baahanay waa maarta dawladda Soomaaliyeed aniga shacabkan Soomaali way ma ahan Ethiopian mugta ma jirta meelo daryeel ama dawo ay ka heli karaan ciidankaada ee shabaab la dagaalamay ma jirta waa ilaa Muqdisho inaan aadi magaaladii Beledweyne barakaceed waa ogtahay suuqa ka jira waa ogtahay dagaal beeleed inuu ka jira mawaagii horantay ma laga hayo wax maarta handa goob caafimaad Beledweyne ku taalo fiican ilaa Muqdisho mooyee dawladda maarta Beledweyne ku jirta Beledweyne wax xiriir ma garantay maarta ima qabanayno qofkii dhaawaca Muqdisho iyo Beledweyne kala geeysi jiray ma fahan waa garta ilaa haddana dawladdu wixii maarta dhaawac soo gaaray iyo dhimasho wax maarta gargaar bow maarta gacan ku fidan ama wada hadal oo dadkan hadda taliya guud wax aan ka haayo hawirata ma jirtano Yuusuf Macalin Isxaaq oo ah sarkaalka hogaamiye maleeshiyaad al-shabaab dagaal kula jira kuwaasoo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay al-shabaab kula dagaalamayay tuulooyin hoos yimaada degmada Beledweyne ee gobolka Shabeellada Hoose ayuu kaasiyaa sidii aad maqlaysan Yuusuf waxa uu qirtay in al-shabaab ay xoog soo saareen laba tuulo oo muhiim u ahaana laga qabsaday dadkii iyo deegaankii uu ka soo tagay al-shabaab ay gubayaan dadkiina ay dilayaan qaar kale oo badanna al-shabaab ay qabsadeen sabab la xiriirta inay qaraabo leeyihiin isaga iyo ciidanka uu hogaamiyo al-shabaab dagaalka kula jira dawladda Soomaaliya oo deegaankaasi ku xoogan wax caawimaad kama uusan helin sidii aad arkayseen ama aad maqlayseen codkiisa waxaan isku daynay inaan helno saraakiisha militariga Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga si aan wax uga weydiino sababta keentay in ciidamada maleeshiyaadka ah ee al-shabaab dagaalka kula jira ee dhul ballaaran laga qabsaday deegaano dawladdu ay maamuli jirteen al-shabaab ay ku soo dhawaadeen ay u caawin waayeen laakiin ma aanan helin xilliga ugu soo dhawaan helno waan idinla wadaagi doonaa warar ayaa ka soo kordhaya xaaladda Beledweyne